السلام عليكم qof waliba oo bini aadam ah oo koonkan ku nool waxa soo maraya waqtiyo fara badan oo uu ku qasban yahay inuu si qasab ah isbedel ku sameeyo waa maxay isbedelka dhabta ah waxaan ku ogaan doonaa muuqaalkan ku soo dhawaada mowduucina maanta qof waliba waxa soo maraya waqtiyo oo uu ku qasban yahay inuu si qasab ah isbedel ku sameeyo waxa macquul ah hoolaad qabatay inaad u qabatay si qaldan inaad u qabatay si ka duwan sidii loo rabay waxa macquul ah inaad ka shalaynaysid hoolaad qabatay waxaad isweydiinaysaa maxaan arintan u sameeyay maxaan hooshan u qabtay kadib waxaad ku qasbanaanaysaa inaad isbedesho waxa macquul ah inay ku soo marto xaalad qatar ah xaalad ku dareensiinaysa inaad qatar ku dhex sugan tahay kadib waxaad ku qasbanaanaysaa inaad isbedesho waxa macquul ah inaad caqabad la kulanto yacni dhibaato aad la kulanto oo ay kaaga imaato shaqadaada ama ay kaaga imaato ehelkaaga oo ay ku qabsato mushkil caa'iliya family problem kadib kaliya aad iswareysatid oo aad isweydiisid maxay arintan ii qabsatay maxaan murugadan faraha badan u dareemayaa caqabadahaas waxay kugu qasbayaan inaad isbedesho haka xumaanin marka ay arinta noocaas ku qabsato haka xumaanin marka ay caqabadaha ku soo wajahaan suurayso walaal hadii adiga aad dul fadhin lahayd telefishinka oo aad daabanaysid waxaan adduuni aakhirba faa'iido ku lahayn suurayso walaal hadii adiga aad iska ciyaaraysid game oo aad waqtigaaga ku luminaysid waxaan adduuni aakhirba faa'iido ku lahayn oo aysan jirin wax dhibaato ah oo aad la kulmayso oo aysan jirin xaalad qatar ku dareensiinaysa maxaad isbedel sameynaysaa wax isbedelka kugu kalifaba ma aadan la kulmine waxaad iskaga jiraysaa raaxadaada beenta ah cimrigaaga inta ka dhiman isma bedelaysa walaal waxaad ogaataa inaad caqabad la kulanto waaba xakeenayo oo sababay inaad adiga iyo nafsadaada sheekaysataan oo aad weydiiso maxay arintan ii qabsatay maxay dhibaatadan igu dhacaysaa kadib waxaad ku qasbanaanaysaa inaad isbedesho inaad noloshaada isbedel ku sameeyso la kulanka aad la kulmaysid caqabadaha waa dantaadii isbedelka dhabta ah waa hadafka hadii shalay aad qof hadaf la'aan ahaa maanta noqo qof hadaf leh oo ay qorshe kala duwan u degsan yihiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay ma isbedeshay kadib markii aad dhibaatootay ma isbedeshay kadib markii aad caqabadaha faraha badan la kulantay ama weli waxaad tahay sidaadii hore waxaadna iskaga jirtaa noloshaadii hore iyo raaxadaadii beenta ahayd wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh